howlgalkan oo ahaa mid qorshaysan oo qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ay ku qaadeen goobo ay maleeshiyada argagixisada al-shabaab ay ku dhibaateynayeen dadka xoolo dhaqatada ee ku nool deegaanada ay ciidamada maanta ku weerareen kuwaasi oo kala ahaa tuulooyinka Shaatolow iyo sidoo kale Qaydar Subow halkaas oo ka dhacay dagaal ba'an oo ay ciidamada qaranka ku burburiyeen dhammaan isbaarooyinkii u yaalay maleeshiyada al-shabaab oo maalmihii u dambeeyay halkaasi ku dhibaateynayay shacabka iskugu kala goosha degmooyinka Luuq, Balad Xaawo iyo Dolow. taliya Bakaal Cabdullaahi Kooke oo ka mid ah saraakiishii hogaaminayay howlgalkan ayaa markii uu soo gabagaboobay howlgalka waxa uu warbaahinta qaranka kula hadlay tuulada Shaatolow halkaas oo ahayd goobtii uu ka dhacay dagaalka. Shaatolow waxaa lagu sheegay nabadiidka al-shabaab labadan bari waad maqlaysaa inay shacabka ku dhibaateynayeen saaka waxaan laga soo kalahay waxay ahayd in ereyadan iyo dhulkan laga leexiyo nimanka ayaga ah oo aan dib dambe loogu arkin daa'imadii laba dagaal oo qorshaysnaa oo aan ku qaadnay waa ka guulgaarnay maanta waxaan harsanay goobtii ay deganaayeen oo ay ku soo dhawaadeen oo ahayd kartaan saaka ilaa 2 saacadood oo dagaal ah ku qaadnay haddana ilaa buurahaas waa laga riday tuulooyinka dambe oo sida ay u jabeen Hareeri Tur iyo meesha la yiraahdo tuulo barwaaqo insha Allah waan filaynaa iyagana inaan howlgal qorshaysan ku qaadno labada maalin oo fooda lagu soo haayo meel kasta oo nabadiidkaas ay uga jiraan gobolka Gedo noqon doontaa mid lagu guulgaari doono insha Allah shacabkana uga mahad celinayna garistaaga iyo wanaagga ay u sameynayaan ciidankooda qaranka Soomaaliyeed waan sii wadi doonaa howlgalka meel kasta oo nabadiidka lagu sheego waxaan ku tagi doonaa lugaheena ma lagu sugaayo meel dambe oo goob ah sidaan hadda saaka u soo aadnay iyo aan u aadi doonaa meel kasta oo lagu sheego shacabkana waxaan rabnaa in ay ilay meedad badan ay ka tageen waa yaalaan Soomaaliyeed tooso isku tiigsanaya bagiina taagtanane taageera waligiin si kastaba howlgalladan ayaa imaanaya kadib markii maalmihii u dambeeyay maleeshiyada al-shabaab ay dhac u geysteen dad rayid ah oo ku sugnaa tuulooyinkaasi waxaana ciidamada qaranka oo mas'uuliyad ay ka saaran tahay badbaadinta shacabka ay weeraro qorshaysan ku qaadeen maleeshiyada al-shabaab halkaas oo ay khasaare ba'an ka soo gaartay maleeshiyada.
تجري يا تمنى يا تلموعا كبعين كرات الموعا دوريو طبعا سنو قال كاني كنت تجري يا تمنى يا تلموعا كبعين كرات الموعا تانيديو مانتلي كيرا لغو مغاري أكوشيش كوكولا تغي أما توماتيري وحير نغا تسالي بل نغا تسالي الكوشيش كوكولا تغي أما توماتيري وحير نغا تسالي بل نغا تسالي طبقك وليجي تيردا هلكا لبدو دبتال هلكا لبدو دبتال واسنا تركيو بشن طبقك وليجي لبدو دبتال هلكا لبدو دبتال فربدن